Saddam Hussein ayaa waxa uu ku soo galay siyaasadda dhanka adeerkii Khayrullah Talfaax oo ahaa sargaal ka tirsanaa ciidamada qalabka sida ee waddanka Ciraaq isaga oo bartay qaar ka mid ah saaxiibada waalidkii oo ahaa saraakiil mug iyo miisaan ku leh ciidanka dalkaasi. bilowgii noloshiisii siyaasadeed ayaa waxa uu ku biiray xisbigii Bacth ee markaasi ahaa mucaaradka. sanadkii 1959 ayuu Saddam Hussein iyo qaar ka mid ah hogaamiyaashii Bacthiyiinta waxay sameeyeen isku day la doonayay in lagu qaarijiyo madaxweynihii dalkaasi Ciraaq ee xilligaasi Cabdulkariim Qaasim. hase ahaatee markii uu suuro gali waysay waxa uu u baxsaday dhanka waddanka Syria isagoo uga sii gudbay waddanka Masar. xilligaasi ay wehlinayeen ku dhawaad 500 oo dhalinyaro ah oo ay dowladda Syria ugu tala gashay inay dhameystaan aqoontooda. waxaana intii uu jooga Masar uu waday abaabul la doonayo in xukunka looga tuuro dowladii uu hogaaminayay madaxweynihii xilligaasi ee Cabdulkariim Qaasim. waxaana iskaashi uu la sameeyay saraakiil ka tirsan ciidanka qalabka sida ee waddanka Ciraaq, taasi oo markii dambe sababtay in la toogto madaxweynihii la doonayay in xukunka laga rido. kadibna waxaa madaxweynaha waddankaasi noqday Cabdisalaam Caarif. Saddam Hussein ayaa markii uu ku soo noqday Ciraaq waxaa loo magacaabay madaxa sirdoonka ee dalkaasi. waxauna ahaa shaqsi firfircoon oo qabtay howlo badan oo muhiim ah. kadibna isfahmi waa dhanka siyaasadda ayaa waxa ay sababtay inuu muteysto xabsi adag, taasi oo sababtay in Saddam Hussein uu ka mid noqdo qolyo abaabulay afgambi ay ku guuleysteen inay xilka uga tuuraan madaxweyne Caarif, taasi oo sidoo kale suuro gelisay in madaxweynaha waddankaasi uu qabsaday Ahmed al-Bakr, kaasi oo waqti kooban kadib xanuun dartii shaqada uga tagay una magacaabay hogaamiyaha dalka iyo taliyaha ciidamada qalabka sida ee waddanka Ciraaq madaxweyne Saddam Hussein. Saddam Hussein ayaa